ugu dambeysay Jamal ma joogaa ha qolkiisa ku jira abon saaxiib ma joogto guriga ka tagtay waad ogeedo wiilka xirsi ayaa maqnaa haddana gabadhii haddana guriga ka tagtay تعال مركان واد أساس قدام ولا waraawi gabadhii yareedan soo korsan anaga oo ehelka iyo arranka anaga aan wayn soo casheeyay ما أنا لا عشان سيد warkaan ku dhahay maqlaysidna waa soo casheeyay أبو كان لا عشان aaba casho ma rabo سبب محد عابو aabbu ma cuni karo ma iga degayso marka iska casheeya idinkee aabbo عمر ورا عمر هو يا ودتك أنا عشان لها عشان ما ربنا دهن ساحو جيرانا جمال حودا وسو عشي آبن حودا عشان يدمو هاي سكا عشي عمر يرانا وسحر وسوقن عشان وسحده
ducaale xageed u socotaa oo dharka la aruursanaysaa waa baxaya baadiyaan aadaya maxaa soo kordhayna waxba aniga waxaan u baahanahay inaan iska soo hawo gedisto magaalada buuqeeda iyo qiiqeeda iyo inaan ayaamo ka maqnaadaan u baahanahay oo adigoon cidna u sheegin inaad iska baxaysaa soo aniga haddaba kuu sheegay ducaale maad iska joogtid waad u jeedaa gurigan suu maalinba qof uga tagaya guriga dhan cidla nagu noqday ma joogi kari inaan baxo oon soo hawo gedistaan u baahana waayaha goormaa soo laabanaysaa ma ogi oo wax kuu qorshaysan ma jiraan miya maya dhowr bilood inaan maqnaan doonaan u malayna waaya allah ku soo arooray macawiisteydii ma aragtay cagaarneed halkaasay ku jirtaa halo هلا عمرنا ايه وانا صاحي في حالة هذا waa kuu fiicana hindiseetahay baa وانا بدقرناي بالقبض كورن حالة هذا wax wara ma ka haysaa wallaahi gabadhii wax wara kama haayo meelay jaan iyo cirib dhigtana lama yaqaano maxaad u malaynaysaa gabadha inay ku dhaceen wallaahi wax u sababa ma aqaano laakiin waxaan ogahay dhibaato kastoo gabadhaas ku dhacda labadeena inaan mas-uul ka nahay waa anaga sabab u nahay maxaynu anaga sabab ugu nahay bal ii sheeg bal maxaynaan sabab ugu ahayn gabadha anagaa qasabnay waxaysan raalli ka ahayn aan ku qasabnay aniga dambigaad samaysay ha iga dhigin qof kula sameeyso waxaad garatay maaha oo ma waxay kula tahay adiga inaad wax luga ku lahayn aniga waxba kuma lihi aniga meeshaan ka imaadaan u noqonayaa saaxiib aan ku salaamayaa gabar aan kaa sugaayana ma jirto saaxiib nabadgeliyo waayahay mac salaama الحمد لله هو
aabba see ahaa walaahi xaaladiisu waa iska xumaad waa laga dayrinaya isbitaalka ma ugu tagtay mise gurigiisa gurigiisa uga tagay isbitaalka waa laga soo bixiyay okay maxaa isleeda waa ka soo reynayaa sidoo hore mise waa ka soo daraa isleeda walaahi rajo ma laha anima bilaha xanuunka inuu ka kacaan hase xitaa wuu isdareensanaa inay xaaladiisaan ay ka soo roonaaneen waayahay muxuu ku dhaha markaad u tagtay yacafiyo ilaah maxaa samaysay marka adiga fursad kale ma ii banaan hoo inaa iska cafiyo danta ayuu kalifto waa iska cafiyo wax fiicanaa samaysay maadaama cafis ku dheh waalidkuna gar iyo gardarrabo waa un waalidkaa adigana waxba ha ka murugoon waxna ha ka welwelin raxmadda ilaahiga lagama quusto waxaa laga yaabaa inuu caafimaad ma garatay insha allah saasaa rajeynaa اسمان soo gal maxaa ku diiday shaqada guriga inaa qabato أنا ماشين معاي شغال قرقان أنا كلي ساق خبنا haddaa waxaa u baahantaa inaa hooy u sheegto soo maaha وشاقي بقول جيرا كلها قف شغالة أو قرقا وشيس إلا قبتنو كان لكن ودي دا إنا كانتو ismahaan ilma yar ma tihid qof weynaa tahay waadna og tahay shaqada guriga inay adig kuu taalo ma waxaa rabtaa inay hooyo jikada kuu gashaa cunto kuu kariso midda kale shaqada ay hooyo banaan ka soo qabatay iyo midda guriga yaa dhib badan dhegeysa aniga guriga waa ka tagaaya waxaan kula daardaarmaya waxaan kaa rabaa inaad hooyo iyo cumar iyo adiga oo guriga ku soo haraayo inaad dar yeesho oo aadna ka warhayso أنت آذن سابو ma aqaan meelaha aadayo laakiin waa baxaya magaaladan dhinaca ka degaya سبب أبوه inuu madaxa ii degaan rabaa inaan soo nastaan rabaa waa magaalada dhinaca ka dego شغال قرقا أنا خبنا هوشان تال أنا وخبنا لكن أنا تجين maya go-aankan waa qaatay laakiin haddii nanoolya waa isku soo laabanayna insha allah haddii aad rabto anuu ku xanaaqsan inaana bixin shaqada guriga qaba hooyo inan daryeel haddii la nool yahana waa isku imaanayna insha allah midda kale hooyo uma sheegin meeshaan aadayo inaan safar shaqo u baxayaan u sheegay adiga waxba ha u sheegin yaa lagaa maqlin idile waa baxaynaa furo xagga nooga soo qabo أنت آذنة guriga habareertaa هاي محا آذنة قرقا برتين waxba ma jiraan caadi waa iska aadaynaa
okay. Waa kaas meesha shuruusan korkaaga. hooy waa baxaysaa soo ma hadda ilaahay ku soo nabad celiyo aamiin hooyo aamiin inta kale gabadhan waa la hadlay shaqada guriga iyo mas-uuliyadda iyo aragtay inay isa saarto ay ka soo baxday hooy adiga xataa waqtigaa soo noqonaysa ma taqaani miya maya hooyo noloma sheegin laakiin inaysan badan doonaan rajaynaya cumar haa ma dhoofiya meesha ka imaata ma aade maya soomaali ma dhaafayo markaan abo geemi kenya abaan soo baxa geemi dheelin awr taleefkeeda ku dheeli jireen hadhaadu ku anfici lahaay maxaad iskaga siinay hooy maya hooyo dhib ma laha ani mid kale iska sii gadana isagana waxbarashadu ka mashquulna waxba ma baranaya hadduu taleefon haysto cumar waxbarashada xilligeeda ha ciyaaraya xilliyada fursadda leedaha ciyaar insha allah waay hay khayr caafimaad ku rajeynaa ismaan naag weyn iska dhigaa maray nin weyn noqo adigani hay السلام عليكم. عليكم السلام. هاي سيتا. يعني ويا. يورن اسمان في عندك هروب قلق. hay هورير seeta يورن fiican يورن هي hore ii fadhis baa سيتا في عندها. الحمد لله. إلى ما بس. ii waran baa في عندي. khayr soo fadhiista alxamdulilah الحمد لله رب العالمين. walaalay guriga labadiina kale idin jeeda aaw dad kale oo dhan kula joogeen wallahi cid joogto ma laha baa intee aadeen dad kale dadka kale waa kala tageen waaba ogeed baxirse inuu baxa ducaalana baadiyo aado jamaalna waa baxyo asna wuxuu yidhi arrimo shaqaan u baxaya laakiin aniga waxay ila tahay si uu gurigaan uga tago inuu raadinayo waa umaleynaa reer ducaal inay tan ku dhacayso qof kastoo gurigaan ka tagan adigu soo u tahay waan ogahay laakiin maxaa sameeyaa markaan waxaa habboon inaan runta kuu sheego oo aan waxba kaa qarin waad ogtahay sababtii uu xirsi gurigaan uga tegay waad ogtahay sababta habboon iyadoo ay wax baranayso aada guurka ugu qasabtay ee aan dhowr jeer kaaga digay tiidina ma aada yeelin taadaa ka socotay waxay la tahay ninkaaga iyo wiilkaagani sababtaa darteed inay guri uga tageen oo aysan kuu sheegin ilaan qofka marka wax loo sheego uu qofku la munaaqashoodu wax qaato yaa wax loo sheegi karaa taadaa ka socotaa in lagaa kala tago meel cidla aad soo istaagteen adaa u sabab ah waan ogahay qaladka dhan aniga inaan leeyahay yaa maxaa ogaatahay ma hadda ogaani marka xeerii fandhaal kala dhaceen oo dadka dhan kala tageen maxay ogaashada ogaata faa'iido leedahay waxba faa'iido ma leh
walaale macaane waxaan kaa rabaa Ee, adigii gabadhaada idil gurigan inaa nala soo degtaan sabab sababtoo ah waxaan rabaa qaladkii aan sameeyo dhan in aan saxo adigana waxaan kaa rabaa garab inaad midaas igu siiso ilan keligay waxba ma qaban kareen haddiiba qaladaadka aad gasho dhan aad sixaysid oo garab istaagaya waa mahadsantahay adaa waa mudan kaa filaya inaad sidaas ii samaynaysid kulligeena ismahaane hee hooyo hooyo biyo iyo shaah iyo wax noo keen bal haye hooyo waa soo wadaa haye runtii soomaalida maaragtay waa la yaabaysan ruuxantii marka aad qaabka u dhaqmayaan maaragtay innaba caadi maaha hee maxaa kugu dhacay hadda mid adiga ka horey maaragtay meeshaan ka soo qaaday lacagta ii tuuray maba isku qalmaan maxaa intaa ka filaysa in ka yar muugsiye inkeena waa dhalay zaa'id weliba ani waxaan is dhahay waa asaas garanaya la heshiin aniga ma aqaan mooto ma ii haystay waan fahmi waa runtii yaab waa niyo soomaalidan runtii waxay ku fiican in la heshiiyo mar walba haddii aad ka qaato inta ii qaba saaxiib meeshaan okay ana hadda ii sheeg meeqa ii keentay Adiga adoo hay wax- dhihin maxaa lahaa maya maya adiga wax badan maa $3 oo keliya kuu keentay waa iska lacag yar nambarka ku tuuri karaa ma waa ku tuuri kartaa haa waa kuu diri saaxiib ama sida saaxiib soo dhawow halo habboon xaggee joogtaa halo habboon saaxiib wax dhib ma jira wigidda majaajir ii sheeg saaxiib inuu jadar noocaaga ah niclaah niclamahay keega ma ku dhiibaa kor ma ka hay nambarka saaxiib taasaa dhibaataa soo kala wareeg saaxiib dukaamadaana ka fiirinayna jaajire